Assalaamu calaykum. Waxaynu maanta marti u noqonaynaa mid ka mid ah mufakiriintii soo maray islaamka noolaana qarniga 14aad oo dhawaada mowduuceena maanta. dadka dhaqaalaha daraasaya ama wax ka qora waxay aaminsan yihiin in aadam mise aabaha dhaqaalaha, laakiin sheekada waa sheeko reer galbeed ma aha mid la isku raacsan yahay. dhanka kale dhaqaalyahanada muslimiinta waxay aaminsan yihiin in ibnu khalduun yahay aabaha dhaqaalaha, bal aan isbarbardhig ku samayno waqtiyadii kala noolaayeen labada aqoon-yahan. ibnu khalduun waxa uu noolaa sanadii u dhexeeyay 1332 ilaa 1406, taa oo ah 4 qarni ka hor markii uu qoray aadam smith buuggiisii Wealth of Nation 1776. Smith waxa uu qayb ka mid ah qoraalkiisa kaga hadlay kala qaybinta shaqaalaha division of labor, waxauna tusaale u soo qaatay warshad soo saarta biinka dharka. waxauna ku muujiyay sida haddii shaqadu ay wadaagaan shakhsiyaad iyadoona qof walba uu qabanayo hal qayb oo ka mid ah shaqada ay kasoo wax soo saar badan tahay, haddii qof walba uu isagu isku dayo inuu biinka u soo saaro si iskiisa. aragtida ibnu khalduun waxay caan ka tahay dhaqaalyahanada casriga nool agtooda, waxauna sheegayaa in kala qaybsanaanta shaqaaluhu ay aas-aas u tahay bulsho kasta oo ilbaxnimo leh. kala qaybsanaanta shaqaalaha oo keliya loogama baahna warshadaha, sidoo kale waxaa looga baahan yahay xaaladaha bulshada iyo kuwa caalamiga ahba. laga soo bilaabo qarnigii 11aad ilaa qarnigii 13aad, inta badan filosofariska reer galbeedku waxay isku dayeen inay naaqusiyaan saameynta culimada muslimiinta iyo aqoon-yahanada iyo ku adeegsanaya qaabab kala duwan oo ay ku jiraan adeegsiga fikradaha muslimiinta iyo ku aan sheegin magaca qoraaga muslimka ah. haddaba waa kuma ibnu khalduun? ibn khalduun tunisi ولكنه ابن الأمة الإسلامية. magaciisa oo dhammaystiran waa cabduraxmaan ibnu maxamed ibnu khalduun alxadrami. waxauna dhashay sanadkii 1332 miilaadiyada, waxauna ku dhashay magaalada tuunis ee dalka tuunis. asalkiisu waa yemani, qoyskiisu waxay ka soo jeedaan magaalada xadrumood oo ka tirsan wadanka yeman. waxa uu bartay qur-aanka kariimka, axaadiista, fiqiga ka u waafaqsan madhabta maalikiyada iyo cilmiga falsafada. cabduraxmaan ibnu khalduun qoyskiisa waxay caan ka ahaayeen tuunis, waana qoys lagu yaqaan cilmiga, fikirka, siyaasadda, waxauna gurigooda noqday jihada u wajaho qof kastoo raadinaya cilmi iyo aqoon. ibnu khalduun waxa uu qoray kitaabkiisii caanka baxay ee almuqadima. kitaabkiisan waxauu ku soo bandhigay cilmi cusub oo ah cilmul cumraan oo haatan loo yaqaano cilmiga bulshada. waxauna ku faahfaahiyey waxyaabaha diinta saameeya sida siyaasadda, dhaqaalaha, awoodda ciidan. ibnu khalduun waxa uu muddo ku noolaa magaalada Saqqara ee dalka Algeria, halka uu kaga sii gudbay Andalus ama wadanka maanta loo yaqaano Spain. muddo ayuu ka shaqaynayay. ibnu khalduun waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Saytuun oo Tuunis ku taala, sidoo kale waxa wax ka bartay jaamacadda Qarawiyiin waxayna ku taalaa magaalada Fas ee wadanka Morocco, iyo jaamacadda Azhar oo ku taala magaalada Qaahira ee wadanka Masar. caalimka ayaa ku noolaa Qaahira ilaa uu ku dhintay halka sanadkii 1406. qarnigii 19aad Yurub aqoon-yahanadu waxay qireen muhiimadda shaqadiisa, waxayna u tixgeliyeen inuu yahay mid ka mid ah filosofarada ugu waaweynaa waqtiyadii dhexe. ibnu khalduun waxa uu leeyahay aragti iyo isagu marjac u yahay ka oo ilaa maanta aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintu adeegsadaan. Ronald Reagan waa mid ka mid ah madaxweynayaasha soo maray xafiiska aqalka cad ee Maraykanka, ahaana madaxweynihii 4aad ee soo mara xafiiska, ayaa delisanaya mid ka mid orahyadii ibnu khalduun oo ku saabsan dhaqaalaha. waxaa isna sidoo kale delisanaya ra'iisul wasaare iminka talada haya Ingiriiska Boris Johnson. I studied economics in college when I was young, and I learned there about a man named Ibn Khalduun who lived 1200 years ago in Egypt. And 1200 years ago he said in the beginning of the empire the rates were low, the tax rates were low, but the revenue was great. He said in the end of the empire, when the empire was collapsing, the rates were great and the revenue was low. Great Tunisian scholar and sage Ibn Khaldoon pointed out as early as the 14th century, there are plenty of taxes that you can cut which will actually increase your revenues, and there are ways of making sure that you stimulate growth, you stimulate enterprise, and you get more in. But what is certainly true is at the moment, Sophie, dalka Turkiga waxaa laga furay 2005 jaamacad loogu magac daray caalimka fikirka weyn ee islaamka ibnu khalduun. madaxweynaha Turkiga oo ka hadlayay xaflad jaamacadda dhiganaysa ayaa yiri Kahire'de sona erdiren ibn Khaldun'un tarih, toplum, insan ve devletle ilgili tespitleri bugün bile bizlere rehberlik.
waxayna wax ka soo qaadan doonaa orahyadiisa caanka baxay Soomaali ahaana ina taabanaya waxaana ka mid ah orahyadaas orahdan waxa uu leeyahay ku dhaqanka caadooyinka dadkii hore micnaheedu maahan dadkii dhintay ayaa nool balse waa dadka nool ayaa kuwa dhintay sidoo kale waxa uu yiri ha sugin bulsho awoodi weyday inay qashinka booskiisa dhigaan in ay dhigaan ama geeyaan qofka booska ku haboon waana arin in haysata ka Soomaali ahaan lana doonayo inaan ka gudubno arinta waxa kale uu leeyahay qiimaha adaabta waa inaad ka aamusto qofku sheekeynaya kuna sheegay arin aad u garanayso isagana uu jaahil ka yahay caalimka orahyadiisa aad bay u farabadan yihiin laakiin inta ayaan ku gaabsanaynaa ibnu khalduun waxa uu wali raadkiisa ka muuqda wadamada Carbeed qaarkood sida wadanka Tunis waxayna u dhiseen taalo waliba lacagtooda qaar ayuu ku sawiran yahay taariikhdu dadkay qortaa qof walibana waxa uu abuurtay waxa uu ku soo kordhiyo dunidan ayuu qortaa ibnu khalduun taariikhdu way qortay waliba sifo wanaagsan waxa laga yaabaa inaad barato dhaqaale haddana aadan maqal ibnu khalduun taasi waxay tilmaamaysaa inaad kaliya ku agtaa waxa lagu baray jaamacadda ee aadan raadin wax dheeri ah teeda kale inta badan culumta kala duwan ee maadiga waxaas alhaan soo iqtiraacay aqoon-yahano muslimiin ah balse reer galbeedku aad ula dagaalameen ayna juhdi geliyeen sidii u dafiri lahaayeen aqoon-yahanada muslimiinta ee hogaaminaya culumta kala duwan waxa ka mid ibnu Sina oo ahaa aabihii cilmiga caafimaadka casriga ah reer galbeedkuna u yaqaanaan Avicenna iyo al-Khawaarizmi oo ah aabaha xisaabta aljabra Jaabir ibnu Xayaan oo ah aabaha chemistryga iyo caalimkan maanta martida u nahay ee ibnu khalduun oo ah aabaha cilmiga bulshada iyo waliba aabaha cilmiga dhaqaalaha casriga shakhsiyaadkan iyo kuwa lamid ah waxay naga mudan barasho haddaan muslimiin nahay ee aan kaliya nolol miirina aqoon-yahanada reer galbeedka iyo koox dafir ee aqoon-yahanadeena waxba yuusan ila taariikhin waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaan ayaan ku simayaa barnaamijkeena maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh